السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركة لسود وواضح أدي هذا ومهسنتهين maanta waa 4 bisha 3 Maarch sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago qodbadii State of the Union oo xalay Trump uu ka horjeediyay Congress-ka Mareykanka oo dhinacyo fara badan uu uga hadlay ayaan rabaa qodobadii ugu muhiimsanaa inaan ka soo qaato iyo maxkamadda sare oo maanta maamulka Trump ku amartay gargaarkii wadamada dibadda la siin jiray ilaa iyo lacag 2 bilyan ah in uu fasaxo waa shaqooyin horey loo qabtay oo dadkaasi ay lacagtooda lahaayeen oo uu ku xukumay maxkamadda sare ay maanta Trump ku xukumtay soo dhawaada qodbada la yiraahdo State of the Union oo madaxweynuhu uu ka horjeediyo Congress-ka oo midaysan labada aqal ayaa xalay u jeediyay Trump qodbad aad u dheer ayay ahayd waxay qaadatay ku dhawaad 1 saac iyo 40 daqiiqo waxaan ognahay xisbiga ka soo horjeeda markasta madaxweynaha marka uu la hadlayo Congress-ka calaamado ay soo qaataan waa ku qayliyaan marka la sacbinayo ma sacbiyaan marka xalay xubnaha dimuqraadiga waxa ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin qaabka Trump iyo dawladdiisa ay wax ku wado waxayna soo qaateen boorar kala duwan oo ay ku qornayd Elon Musk wax buu xadayaa hala badbaadiyo Medicaid hala ilaaliyo veteranska been ayaad sheegaysaa oo Trump hadaladiisa ay ula jeedeen sidoo kalena dhar casaan ah ama gaduud ah ay soo qaateen iyadoo sidoo kalena calaamado ay kamid yihiin this is not normal iyo waxyaabo noocaas la mid ah qaar kamid ah xubnaha waxa la arkay xitaa tayga ka soo dhigtay calanka Ukraine maadaama gargaarkii Ukraine la siin jiray uu Trump joojiyay marka qodbada Trump waxa uu uga hadlay qodobo dhowr ah iyadoo dhinaca dimuqraadiyiintana waxa jirto qof u jawaabo oo isaguna qodbad kooban jeediya senatarka dhawaan laga soo doortay gobolka Michigan oo la yiraahdo Elise Slotnick ayaa iyaduna qodbad 10 daqiiqo oo dhinaca Trump tiis uga soo horjeeday dhinaca dimuqraadiyiinta oo jawaab celin jeedisay marka Trump waxa uu qodbadiisa uga hadlay dhinacyo dhowr ah oo arrimaha xadka masaafurinta canshuurta uu ku soo rogay Mexico iyo Canada iyo Shiinaha dib u magacaabistii sidoo kalena Gulf of America uu ku bedelay markii hore Gulf of Mexico ahaa la soo wareegista kanaalka Panama arrimaha Greenland dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo sheegay in hadda Zelensky uu la soo hadlay diyaar u yahay inuu heshiis saxiixo dagaalka ka socda bariga dhexe waxyaabaha gudaha Mareykanka dhaqaalaha sicir bararka waxyaabahaas oo idil ayaa Trump uu ka hadlay marka isagoo ka hadlayay la dagaalista dhinaca sicir bararka ka jira wadanka ayaa waxa uu sheegay in uu abuuray waaxda la yiraahdo Department of Government Efficiency oo Elon Musk uu madax ka yahay waxa uu sheegay ilaa hadda lacag fara badan oo dawladdu bilaa micno darro ay u bixinaysay inay badbaadiyeen oo social security ay ka mid tahay Trump waxa uu yiri dad 100 sano 150 sano 130 sano 160 sano ilaa iyo 300 sano inta dawladda Mareykanka ay jirta ka badan ba dad jiro ayaa lacagaha social security ka qaadanaya waa sida uu sheegay marka waxa uu sheegay in uu aad ugu amaanayo Elon Musk hawsha uu hayo marka Trump oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but we'll be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Donald Trump sidoo kale waxa uu ka hadlay markii uu xilka la wareegay ilaa hadda arrimaha masaafurinta iyo qabqabashada dadka sharci darrada ah ee wadanka sida sharci darrada ah ku joogo ilaa iyo 20,000 oo qof ayaa la xiray ayaa leeyahay ilaa iyo Trump markii uu xilka la wareegay oo ugu bil iyo 15 maalmood 43,000 ayaa hadda xiran marka la barbar dhigo sidoo kalena xuduudda dadka isku dayeen in xadka ka soo galaan marka la barbar dhigo 3 sano ee la soo dhaafay bisha February oo 100,000 ay ka badnaayeen hadda bishii February ee dhamaatay 8,326 qof ayaa isku dayday inay xuduudda soo galaan dib ayaana loo celiyay sida Trump uu ku soo qoray bartiisa sidoo kale Truth Social waxana uu sheegay in sidoo kalena dad ciidamo gaaraya 2,900 oo dheeri oo militariyana inuu xadku u diray marka Trump waxa uu yiri xuduudda ammaan ayaan ka dhignay dadkii dambiilayaashana wadanka waan ka qabqabanay marka waxa uu yiri dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu waxay dhihi jireen sharci ayaan u baahanahay si xuduudda loo sugo laakiin waxa uu yiri waxa kaliya loo baahnaa waxay tahay in madaxweyne cusub la doorto isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Donald Trump waxa uu sidoo kale mar kale ka hadlay arrinta iskuulada oo caruurta lagu bedelay jinsigooda. Waxa uu sheegay in uu u aqoonsaday labada jinsi ee wadanka loo aqoonsan yahay inay yihiin rag iyo dumar oo wax ka dhaxeeya aysan jirin. waxana uu sheegay in uu saxiixay wareegto ah in ciyaaraha dumarka aysan rag ciyaan karin waa dadka isbedelo oo transgenderka isagoo sheegay in iskuulkii lagu arko isagoo arrintaasi sameynaya in dowladda federaalku aysan wax lacag ah siin doonin. Trump oo arrimahaasi ka hadlayna mar kale waxa uu yiri We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. From now on, schools will kick the men off the girls' team, or they will lose all federal funding. markii ay khudbadu bilaabatay waxaa jiray xildhibaan dimuqraadi ah oo laga saaray aqalka Congress-ka halka khudbada uu ka jeedinayay Trump markii uu istaagay isla markaana uu ku qayliyay Trump. xildhibaankaasi waxa la yiraahdaa Al Green waxa laga soo doortaa Texas waxaana amray in laga saaro goobta Trump khudbada uu ka jeedinayay afayeenka aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka Mike Johnson. sidoo kale waxa arkay Ilhan Omar oo iyadoo aamusan fadhisa kalfadhiga isla markaana aan hadlaynin xubnaha dimuqraadiyiintu waa ay ku qaylinayeen mararka qaar waa ku orinayeen iyagoo inta badan aan sacbinaynin oo fadhiyay oo aamusnaa mar inta Trump khudbada uu jeedinayay. dhinaca kale maxkamadda sare ayaa maanta waxay ku amartay maamulka Trump inuu fasaxo lacag $2 bilyan ah oo gargaarkii Mareykanku uu siin jiray wadamada dibadda oo Trump joojiyay markii uu xilka la wareegay. waxaana maxkamadda sare ay sheegtay in hay'adda USAID shaqooyin horey loo qabtay oo dadkaasi lacagtooda ay u baahnaayeen in la siiyo in maamulka Trump uu joojiyay markana waxa lagu amray in arrintaasi oo lacagtaasi uu fasaxo maamulka Trump. horey ayaa garsoore kale oo Amir Ali la yiraahdo 26 bishii February ay go'aankaas soo saartay Trump maxkamadda sare ayuu u gudbiyay marka maxkamadda sarena waa ay ka diiday. Trump waxa la saftay 4 garsoore maxkamadda 9 garsoore ayaa fariisata waxaana garsooreyaashaasi ay kala yihiin Trump la saftay Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch iyo Brett Kavanaugh halka sidoo kalena 5 kalena ay yiraahdeen waa in dawladdu ay fasaxdaa lacagtaasi gargaarka ajnabiga ah isla markaana lacagtaasi $2 bilyan gaaraysa dadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo. marka Trump waxa laga yaabaa haddana mar kale arrintaasi raacfaan degdeg ah inay ka qaataan wayna arki doonaa sidoo kalena halka arrintaasi ay ku dhamaato. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.